عودوا بل كورك بل عودوا بل كورك بل وما سنت والله يونيفرسال تي في وين سلامية runtii dee argagax baa iga muuqda meeshan kamid ah dhalinyarada ka qadeysay ama dadka ka qadeeyay banaanka uga baxay markaas banaanka markaan u baxayna runtii waxaan fariisanay inta u dhaxaysa maqaaxida meesha la qarxiyay qaraxu ku dhacay iyo weheliye hotel dhexdeeda aniga iyo saaxiibadey kale fadhigaan fadhinay baa qaraxu dhacay meel uu naga xigaan garan weynay runtii burburkii ka bacdi baan ku soo baraarugnay qof kasta caafimaad qaba mar walba aan soogaanay inaan caafimaad qabno alxamdulillah ka bacdi aniga saaxiibadayda qaar kamid ah maqaaxida iga harsanaa oo laba kamid ah dadkii la socday ayaan dib ugu soo laabtay markii wixii ay kala digeen waan fiiriyay laba saaxiibada waa ku dhinteen Allah yarxamo ilaahu naxariisto dhimashada kale aan arkayna indhahaygu saaran shan kamid ah kale ahaayeen ilaa 7 qof oo labada saaxiibada kamid ahaayeen dhaawac ma sheegi karo ma cadeyn karo intay ahayd alxamdulillah waa saasa wax u dhaceen runtiina dee maqaaxidu restaurant bilsan in Soomaaliyeed oo dad ganacsatada iska lahaaba kamid aha meel bulshadu iska fariisan jirtay bay ahayd waliba qaar koox wariyaal meesha waa ku fariisan jireen runtii maanta ani kaliya waa ka joogay tiimkay saxaafadda laakiin alxamdulillah waxay ahayd meel aanu ku baashaalno dee lagu caweeyo ama lagu waxa laga cabo bay ahayd maqaaxi runtii dee aan dadku isugu yimaadaan bulshadu oo kamid ah wadada Makal Mukarrama maqaaxida bilsan baa la dhigi jiray